Dowladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay qaraxii ka dhacay xarunta gobolka Banaadir 24-kii bishii la soo dhaafay, isla markaana uu ku geeriyooday Allah u naxariistay gudoomiyihii gobolka Banaadir Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow. Warkan ka soo baxay Wasaaradda Amniga Soomaaliya ayaa ku saabsanaa natiijada baaritaanadii ay wadeen maalmihii ugu dambeeyay. War-saxaafadeedkan ee soo saartay Wasaaradda Amniga Soomaaliya ayaa sida tan u qornaa: Wasaaradda Amniga Gudaha oo tixraacaysa warbixin baariseed hordhac ah oo ay sameeyeen hay'adaha amniga dowladda federaalk Soomaaliya kuna saabsan qaraxii ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar 24-kii bishii toddobaad 2019, waxay wasaaradda amniga la wadaagaysaa bulshada Soomaaliyeed sida soo socota. Ugu horreyn, dowladda Soomaaliya waxay tacsi u diraysaa intii ku dhimatay, sidoo kale caafimaad degdeg ahna u rajaynaysaa intii ku dhaawacantay falkii foosha xumaa ee ka dhacay xarunta dowladda hoose ee Xamar. Dowladda Soomaaliya ayaa caddaynaysa falkaasi inuu ahaa dhibaato loo geystay shacabka Soomaaliyeed. Baaritaan hordhac ah oo ay sameeyeen hay'adaha amniga ayaa lagu ogaaday inay isqarxisay ruux dumar ah kana shaqaynaysay dowladda hoose ee Xamar, iyadoona kaalmo ka helaysay ruux kale oo dumar ah oo ku qornaa kaaliye shaqaalana ka ahayd xarunta dowladda hoose. Labada gabdhood ayaa baaritaanku caddeeyay in aan la dhammaystirin hubintii loo baahnaa markii la shaqaalaysiinayay. Sida lagu ogaaday baaritaanka, labada gabdhood ayaa fasaxyo isku dhow oo bil gudaheeda wada qaatay, iyadoo xogta qaarna ay tilmaamtay in ay tageen goobaha ay maamulaan Al-shabaab. Ugu dambeyn, waxaan bulshada Soomaaliyeed la wadaagaynaa mar labaad in falkaasi argagixiso ee ka dhacay xarunta dowladda hoose loo soo qabqabtay dad lagu tuhunsan yahay inay ku lug yeelan karaan falkaasi, lana horkeeni doono hay'adaha garsoorka ee ku shaqo leh, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkan ka soo baxay Wasaaradda Amniga Xukuumadda Federaalk Soomaaliya.